Akaadamiyadda Hidaha iyo Dhaqanka ee Waaberi oo ah xarun ka shaqeysa ilaalinta iyo dhowrista agabka dhaqanka Soomaaliyeed oo dhawaan laga furay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa agab iyagu sameeyeen waxa ay ku soo bandhigeen deegaanka Dalyar ee ka tirsan gobolka Sool. Cabdiraxmaan Khaliif oo gudoomiyaha akaadamiyaddan ayaa sharaxay waxyaalaha ay qabtaan. halkan maanta waxaanu ku daahfuranay barnaamijkii hiddo dhaqan iyo dhigaal annagoo ah akaadamiyadda hidaha iyo dhaqanka ee Waaberi Academy. akaadamiyadan oo ka aasaasan xarunta gobolka Sool ee magaalada Laascaanood. akaadamiyadan oo aanu aasaasnay horaadadii 2020kii waliba bishii afraad. akaadamiyadan oo barnaamijkan ay saaka halkan ku duubasay ah barnaamijka dhaqan iyo dhigaal oo ujeedadiisu ama ulajeedkiisu yahay in lagu soo cusboonaysiiyo laguna soo koobkoobo waxyaabihii agabkii hore ee dhaqanka Soomaaliyeed oo ahaan jiray. barnaamijkaas oo ulajeedkiisu yahay in ay bartaan dadkii Soomaaliyeed agabyadii hore ee Soomaalidu isticmaali jirtay, dhaqamadii aan gaarka u lahayn hadaynu nahay ummadda Soomaaliyeed. waliba muhiimadda koowaad ay ahayd dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhashay qurbaha ku koray ku naqaan gaaray ee aan waxba ka aqoon waxa uu yahay dhaqankeena suuban ee Soomaaliyeed. Abiyon waxay sharaxaysaa qaar ka mid ah agabka dhaqanka Soomaaliyeed oo iyadoo ay gacanteeda ay ku samaysay si ay u fahmaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee weligood araga. bismillaahi raxmaani raxiim. maanta halkan waxaan ku sharaxanaa agabka Soomaaliyeed ee dhaqankii hore soo jireenka ahaa ayaan ku sharaxanaa qayb ka mid ah. haddii aan barnaamijka guda galana hadda bahashan aan gacanta ku hayo kale waxa la dhahaa dhiil, waxaana lagu shubtaa caanaha waana lagu dhigtaa. sidoo kale haddii aan tan labaad idiin sharaxo waxa weeyaan waxa lagu lulaa caanaha. dadkaan aqoon caanaha lagu shubaa ka bacdi waa la lulaa, waxay soo saartaa burcad. markaas burcadkii baa la shiilaa, waxa uu soo saara markaas subagga sixinta saa u taqaaniin waa haantaas. si aan ku cabiro suugaanta hees hawleedada marka hooyada Soomaaliyeed haanta lulaso waxa la akhriyaa hees hawleedo dumarka u gaara. marka haddaan midhiya laba ka soo qaato waxa la dhahaa haanti bullay baxlaba qaalin kula buubtay laba qaar laga kala dhiqoobalayow heed saddex kaga diga kaga dayriyaya kaga dindhigaya ninka gaabana guursan markay geelu cadhoobo gonduhu ka dhayaaye maraqsaarka ma gaadho ninka dheernaha guursan oo waxaadan u guursan. tan iyo burburkii dowladii dhexe ee Soomaaliya agabka hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed waxa uu sii dabargo'aya haddii ay noqoto isticmaalkiisa iyo weliba ilaalintiisa. laakiin dhalinyaradan oo ah kuwa iskooda suxil qaamaya u istaagay sidii ay u ilaalin lahaayeen isla markaana ay u soo saari lahaayeen agabka dhaqanka Soomaaliyeed si ay uga faa'iideystaan dhalinyarada Soomaaliyeed.